bismillaahi raxmaani raxiim. isku soo noqod wanaagsan, kala maqnaasho badan kadib waan isku soo laabanay, alxamdulilah weeyaan. Cashirkan waxaan rabaa inaan idinku baro sida la iskula isticmaalo labada qaacide caanka ah, sum iyo VLOOKUP. sida la iskula isticmaalo ayaan ku baranaynaa. Waad u jeedaa xogtan halkan kaaga muuqato waxa weeyaan dad iibiyaal ama gadayaal sales people iyo 4 bilood February, March, April iyo May waxyaabihii ay kala gadeen ayaa halka ku qoran. xagga sarana waxa ii saaran halkan sales person, qofka waa kuwan halkan weeyaan. inta markaan qalinka saaran waxaad arkaysaa inuu ii soo baxay drop down. Waaka validation waa data validation ka igu jirtaa. intana waxay igu jirtaa qaacidadaas. Marka tiradan waxay tahay hartaan aragno. tiradan waxa weeyaan Abdi wixii 4 bilood uu gaday isku dardarkooda waa waxa halka kaaga muuqdo. Tusaale hadii aad eegto hadaan Abdi wixii uu gaday dhammaan aan sida wada highlight gareeyo oo aan xagga hoose tago waxaad arkaysaa inay tahay 85698 waa tirada halka ku qoran. marka hadii Abdiga aan ka bedelo meeshan oo aan aado Yusuf aan ku bedelo waad arkaysaa tiradii way isbedelaysaa. waxa hadda soo gelaya 33945 33945 kaasna waxa weeyaan Yusuf wixii uu gaday. hadii aan rabno inaan xaqiijino sida ayaan wada highlight gareynaynaa, then kadib halkan ay imaanaya waa sax, waa 33945 weeyaan. sidoo kale hadaa qofka ugu dambeeya aan ka dhigo oo khatra ah oo qofkana aad arkaysaa inay noqonayso 9418. hadii aan xaqiijino sida u highlight gareynana waxaad arkaysaa inay sax tahay. marka sida aan u sameeyay qaacidadan waan iskugu rakibay ayaan rabaa inaan idinku baro cashirkan yaro kooban. marka ila soco. waatana marka xogtii oo nadiif ah oo aanan lahayn waxyaabihii qaybta hore ay lahayd oo aan lahayn. hadda ayaan rabaa marka inaan ku soo rakibo qaacidooyinkii. marka waxa ugu horeeya oo aan ku bilaabayo waxa waaye inaan goobtan ka sameysto data validation oo aan ka sameynayo magacyadan halkan ku qoran. marka waxaan sameynayaa halka aan qalinka geesanayaa, kadibna waxaan tagayaa data, kadibna waxaan tagayaa data validation oo kana waxaan soo qaadanayaa data validation. waxaan qodayaa qaybtan yar oo halkan waxaan qaadanayaa list, kadibna filaartaas yaraan taabanayaa. markay sidaa ay noqotaan waxaan u tagayaa magacyadan, kadib waan highlight gareynayaa dhammaantood. markay sidaa halka ay ugu gasho reference-ka ayaan halkan tuujinayaa, kadibna waxaan leeyahay okay. inta markaan sameeyo waxaad arkaysaa halka inay ii noqoto drop down oo fanaxdaasaan ku garanaya. halka hadaan tuujiyo waa kana magacyada idil halkan aan ku soo shubay. inta kadib magacyadan aan mid ka qaadanaya. tusaale midkaan doonaan ka qaato waxaan ka qaadanaa tusaale ahaan Yusuf ama waxaan ka qaadanayaa Abdi. midkaan doona ayaan qaadan karaa. markaan qaato sababta waxa weeyaan halkan aan rabaa inaan qaacidadii geliyo, laakiin qaacidada meeshan oo aadan waxba gelinin oodan magac mid kamid ah aadan dooranin. qaacidada halkan hadaad geliso inay shaqeyn kali weysaa macquula. marka midkooda inaad halkan ka doorataa la rabaa si hadhow mataqaana qaacidada si fiican kuugu shaqeyso. marka goobtan aan haddana imaanaya, goobtan waa goobtii qaacidadii la gelin lahaa. qaacidadii aan gelinaya, qaacidada qaabkan u gelinaya marka waxa weeye waa equal aan leeyahay VLOOKUP. qaacidada waa tii aan sheegnay waa VLOOKUP. marka VLOOKUP ka sida ugu qoraya, kadibna taabanaya. halkan waxa iiga muuqanaya qaacidada VLOOKUP gudaheeda waxa ku jira ayaa halkan iiga muuqanaya. waxa ugu horeeya waxa waaye lookup value. lookup value-ga waxaan leeyahay waxa waaye Abdi, kaasaan tuujinaya. kadib command iska tuujinaya. waxa iigu xigo table array. table array-na waxa waaye table-kan oo idil meesha laga raadinayo Abdi, goobta laga soo raadinayo waaye. soo asaga dhan baan sidaa u highlight gareynaya. kaliya waxaan ka tegayaa qaybtaas sare title-ladan ka tegaya. saa markaan u doorto isagana command leeyahay. command markaan dhaho aan ka gudbo waxaan furayaa bracketka noocana. keyboardka si fiican u fiiri, bracketka noocan aan furayaa. kadib waxaan rabaa inaan soo geliyo kolumiyada aan ka rabo inay ka soo baxdo xisaabta, ilaan meeshan xisaab ay noo geli doontaa. markaad fiiriso marka xogta markaa sidaa u fiiriso waxaad arkaysaa xogtan inay tahay 1 2 3 4 5 kolum inay tahay arkaysaa. oo kolumka u horeeya uu yahay kan magacyada ay ku qoran yihiin. kolumyada xisaabaadka ay ku jiraan ay ka bilowdaan February, kolumkaas March, April iyo May ay yihiin. marka annaga maadaama qaybta halkan aan qaacidada gelinayo ay tahay qaybtii lacagtaden kolumyadan tirada iyo lacagaha ay ku jiraan basaan isticmaalaya. laakiin VLOOKUP markaad isticmaalayso waxa waaye kolumka ugu horeeya waa kana. marka annaga kolumka ugu horeeya kama bilaabayna, waxaan ka bilaabaynaa kolumkan ee xisaabta ka bilaabanaysa oo kolumka labaad ah. marka labaasaa ugu horeeya. command haya kolumkana muxuu noqonaa oo March ay ku qoran kolumka saddexaad uu noqonaa. command leeyahay kolumkan April ay ku qoran wuxuu noqonaa kolumka afraad. waxaan ka soo tirinaynaa
كولمka koobaad ee magacyada ku qoran yihiin comma aan leeyahay kolumka u dambeeya may ay ku qoranta waa 5 tiradiisa waa 5 inta markaas sameeyo isla bracketkii noociisa ayaan ku xirayaa meesha kadib waxaan sameynayaa comma VLOOKUP markaad isticmaalayso qaacidada waxaa la kala qaataa markaad qaacidada sida u soo dhameystirto gudaheeda wuxuu ku jira sida u soo dhameystir goobta ugu dambeysa markaad marayso waxaad qaadanaysaa true ama false waxa la dhaho truedu waxay ka dhigan tahay approximate match waxa weeyaan tirada ugu dhow weeyaan false kan waxay ka dhigan tahay exact match waa tirada saxda inaad hesho shayga saxda aad raadinayso inaad hesho annaga marka waxaan rabnaa tirada saxda inaan helno ee halka nooga soo baxda rabnaa ma rabno wax u dhow iyo nearest waxaas ma rabno tan saxda exact ka rabnaa inaan helno marka waxa labadan midka aan qaadanayn wuxuu noqonayaa false ka marka tira ahaan false ka waxa matalaya ever truedana waxa matala 1 ka qaacidada ku isku isticmaalayso marka anaga maadaama false aan rabno false kana ay matalayso ever ta halka ku qoranaya bracket-keygana waan xiranaya marka kadib waxaan leeyahay inta markaan dhaho qaacidadii waxay halka ku fardhisay tirooyin qaabkaas ugu fardhisay tirada ugu horeysa waa tirada ay ku shubta goobtii aan ka dhisnay qaacidada oo halkan waa 4068 hadaad u fiirsatana waxa waaye wixii Cabdi uu gaday bishii ugu horeysay waa kolumka ugu horeeya waxa ku qornaa waa Cabdi ugu qornaa kan kale waa 250 waxa waaye kolumkii labaad wixii ku qornaa waa kan kale sidoo kale kan kalena sidoo kale waad arkaysaa marka qaabkaas sidaas ugu fardhinaysa marka hore laakiin anagu sida ma rabno anagu waxaan rabnaa inay tirooyinkan ama xisaabaadkan totalkooda isku darkooda inay halkan ku qormataan rabnaa anaga waxaan sameynaa marka qaacidadii VLOOKUP aan sameeyay yaa waxaan ku dabaqayaa qaacidadii kale ee sumka sidaan qaybta horeba ku sheegnay qaabka ugu dabaqayana waxa way waxaan imaanayaa calaamadda ay qaacidada ka bilaabato equal iyo xarafka v meesha u dhaxaysa qalinka sida uu keenaya meesha qalinka badboodaya eeg halka markaan keeno waxaan qorayaa sum markaan qoro waxaan taabanayaa tab uu qabsanayaa markuu gelayaa dhab bracket furmaya bracket-kan furmay yaan xirayaa waxaan ka xirayaa meesha u dambeysa qaacidadan qalinka keenaya kadib bracket kale taan xiraya bracket-kan aan xiraya waa kii hadda ay la imaatay sum intaas bisan sameynaya wax kale ma sameynayo okay aan leeyahay marka uu isku soo daraya dhamaan tiradii uu isku soo wada daray 85698 ayaa noqotay haddaan rabno inaan eegnana waxa way dabcan de qaybta horaan ka soo eegnay sida intaan dhaho yaa waxaan imaanayaa halkan xagga hoose oo ka 85698 marka haddii halkan aan bedelo oo intaan sida u taabto aan soo qaato tusaale Leila oo kale waxaan arkayaa Leila inay total ahaan gaday 49641 haddii aan toos soo xaqiijino Leila u tagnana Leila magaceeda waa kana halkaas sida aan u highlight gareeyo waxaad arkaysaa inay tahay 49641 oo lamida mid halka ku qoran marka hadhow si fudud maad halkan muxuu ahaa saan iska dhigaysaa mid kale la soo bixi totalkiisa waa ka mid kale la soo baxaysa totalkiisa waa ka meeshaan double click dhahay tirada badatay marka waa qaabkaas ay noqonaysaa waxyaabahan marka waxa loo isticmaalaa marka database-da la sameynayo marka dukaanle hadii aad tahay ama ganacsi aad leedahay oo kale waxyaabihii qofka uu gaday total ahaan marka la sameynayo marka aadan rabin totalka in si fudud qofka markuu sida u fiiriyaba documentigaaga inuu arko aadan rabin oo macnaha talaabada yar oo jagta ah aad ku qarinayso dhag markaas soo aad helayso waxa laga yaabaa hadda February ilaa March way marka qaar ilaa halkaas oo kale tigaysa haddaad rabto intaad iska qariso kuwan oo kale yaad hawshaadan iska wadan kartaa intaad mataqaanaa cadaan ka dhigto yaad muxuu ahaa hawshaada iska wadan kartaa tusaale haddaan intaas cadaan ka dhigo lama arkayo laakiin halkan haddaan intaa okay dhaho oo aan Leila soo qaato waxa uu update gareynaya haddaan soo qaato khatar ugu hooseyso waxa uu update gareynaya okay soo qaadan aan leeyahay sida uu highlight gareeyo waxa uu tusinaya 9416 weeyaan marka qaabkaas ayaad iskuula isticmaalaysaa labada qaacido caanka ah sum iyo VLOOKUP marka haddii aad ka heshay fadlan share inoo dheh like nasaar assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh